ودنا قدومي حلبانا لا شرف له وحا maanta sharaf weyn ah inaan hortiina imaado si aan u helo codkiina kalsoonida aad ku ansixinaysaan magacaabista madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed iyo magacaabay xilka ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed golahan oo ah golaha sharci dejinta matala shacabka Soomaaliyeed kuna dhaqmaya awoodda uu siiyay dastuurka mudane gudoomiye xildhibaanada sharafta leh haddii aad siisaan kalsoonidiina maanta waxaan ballan qaadayaa inaan noqdo ra'iisul wasaare soo dhisa xukuumad ka ballaaran tii ka horeysay xukuumaddaas oo leh tayo aqooneed hufnaan karti waxqabad iyo matalaad shacbiga Soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan mudane gudoomiye xildhibaanada sharafta leh aragtida xukuumadda aan soo dhisi doono haddii aan helo kalsoonidiina waxaa saldhig u ah abuurid Soomaaliya cusub oo nabad ah kula nool nabad iyo xushmad deriska iyo dunida kaleba Soomaaliyada cusub waxay ku dhisnaan doontaa dimuqraadiyad ku salaysan hanaanka federaalka aragtidaas waxaa saldhig u ah lixda tiir ee siyaasadda uu ku hogaaminayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed mudane gudoomiye xildhibaanada sharafta leh dhibaatooyinka iyo caqabadaha haysta ama hortaagan maanta dalkeena waad la socotaan haddii ay tahay xag nabadgelyo siyaasad ijtimaaci bani aadamnimo iyo fidinta awoodda dowladeed lagu fidinayo degmooyinka iyo gobollada dalka ujeeddada guud ee dowladda aan soo dhisi doono haddii aad codkiina siisaan waa dhisid qaran ku dhisan sharci kala dambeyn iyo mabaadi'da dowlad wanaagga si waafaqsan dastuurka ku-meelgaarka iyo xeerarka dalka kobcinta dhaqaalaha iyo kor u qaadista dakhliga dowladda iyo ilaalintiisaba dib u heshiin dhab ah oo ummadda Soomaaliyeed tayeynta ciidamada nooc kastoo ay yihiin baabi'inta cadaalad darrada iyo dib u soo celinta sumcaddii iyo sharaftii qaranka mudane gudoomiye xildhibaanada sharafta leh ujeeddooyinkan soo sheegay waxay ku salaysan yihiin iyadoo la lafaguray lana tixgeliyay xaaladda dalku marayo waqtigan xaadirka iyo higsashada barnaamijka ina gaarsiinaya 2016 mudnaanaha lagu gaarayo ujeeddooyinkaas oo aan ku tifaftiri doono barnaamijka xukuumaddan soo hordhigi doono golahan haddii eebbe idmo markaad siisaan codkiina kalsoonida waa sida soo socota sugidda amniga iyo xasilinta dalka xukuumadda aan soo dhisi doono waxay mudnaanta koowaad iyo tan labaad iyo tan saddexaadba siin doontaa xooggana saari doontaa sugidda amniga iyo xasilinta dalka taasoo la'aanteed aanay suurtagal ahayn wax horumar dhaqaale ah iyo adeeg bulsho midnaba siyaasadda amniga ee xukuumadda aan soo dhisayo waxay ku salaysan tahay la dagaalanka argagixisada xagjirnimada burcadbadeedka khilaafaadka hubaysan ee beelaha burcadnimada iyo falalka kale ee qarannimadeenna waxyeelaya oo loo yaqaano crimes against the state si ujeeddooyinkaas looga gungaaro marka aad kalsoonida siisaan waxay xukuumaddaydu ku dhaqaaqi doontaa haddii eebbe idmo dib u dhiska ciidamo muuqaal qaran leh ha noqdaan kuwa nabadgelyada booliiska asluubta iyo xoogga dalka Soomaaliyeed kuwaasoo hanan kara kalsoonida shacabka Soomaaliyeed kuwaasoo tayaysan tababaran qalabaysan hoggaan suuban leh waxay xukuumaddaydu u howlgeli doontaa haddii alla idmo ogaanshaha tirada
iyo tayada dhabta ah ee ciidamada hadda jira xukuumaddeedu waxay joogtaynaysaa waxa la leeyahay wixii xuquuq ah ee ay mudan yihiin ciidamadaas si moraalkooda kor loogu qaado xukuumaddu waa midaan soo dhisi doona haddaad kalsoonida siisaan waxay dib u habeynaysaa hay-adaha amniga heerarka kala duwan hay-adahaas waxaa saldhig u noqon doona shaqo qaybsi cad wada shaqayn dhab ah la xisaabtan iyo u adeegidda bulshada mudane guddoomiye xildhibaanada sharafta leh xukuumaddeedu waxay ku dhaqaaqaysaa hubka dhigista iyo dhaqan celinta maleeshiyaadka iyadoon la aqbali doonin ciidamo hubaysan oo ka baxsan ciidamada qalabka sida ee dowladda sidoo kale xukuumaddu waxay qorshe u dejin doontaa inay gacanta ku dhigto aagaga ay ku sugan yihiin xoogagga nabaddiidka ah nooc kastoo ay yihiin annagoo kaashanayna saaxiibadayada amisom iyo beesha caalamka xukuumaddu waxay la shaqayn doontaa dhammaan qaybaha bulshada si ay gacan wax ku ool ah uga geystaan sugidda amniga iyo xasilinta dalka taasoo dantoodu iyo tan dalkuba ku jirto xukuumaddaydu waxay diyaar u tahay inay soo dhowayso cid allaale iyo ciddii ka soo noqonaysa xagjirnimada ogolna jiritaanka qarannimada soomaaliyeed iyo ku dhaqanka diinteenna suuban ee saxda ah xukuumaddu waxay wacyigelin doontaa dhallinyarada fikirkooda la khalday waxayna u fidin doontaa gacan horumarineed sida tababar xirfadeed fursado shaqo iyo wixii kale ee ku dhiirigelinaya inay ku soo biiraan bulshadooda isla xagga amniga xukuumaddan soo dhisi doono waxay xoojinaysaa iskaashiga iyo wada shaqaynta ay la leedahay dalalka deriska iyo beesha caalamka xagga dhaqaalaha mudane guddoomiye xildhibaanada sharafta leh haddii aad siisaan codkiina maanta xukuumaddan soo dhisi doono waxay noqon doontaa mid ku shaqaysa siyaasad furfuran oo dalka u horseedi karta koboc dhaqaale taasoo door weyn ka qaadanaysa dib u dhiska iyo xasilinta dalka si aragtidaas u hirgasho xukuumaddu waxay ku dhaqaaqi doontaa tallaabooyinka diyaarinta shuruucda iyo siyaasadaha lagu maamulayo dhaqaalaha iyo maaliyadda oo tifaftiran oo ay ka mid yihiin xeerarka siyaasadda canshuur ururinta midaynta dakhliga dowladda iyo maalgelinta taasoo aynu rajeynayno inay wax ka qabato kalsoonida maalgeliyayaasha iyo dadweynaha intaba xukuumaddu waxay u howlgeli doontaa dhisidda iyo tayeynta hay-adaha lafdhabarka u ah dhaqaalaha iyo maaliyadda sida bangiga dhexe hantidhowrka guud xisaabiyaha guud iyo hay-adaha kale ee lagama maarmaanka xukuumaddu waxay dhiiri gelin doontaa wax soo saarka iyo suuqgeynta beeraha xoolaha iyo kalluumaysiga si kor loogu qaado tayada nolosha dadweynaheena xukuumaddaydu waxay abuuri doontaa haddii alla idmo mashaariic keeni kara shaqo abuur iyadoo looga faa'iideynayo shaqo abuurkaas shacbiga gaar ahaan dhallinyarada haweenka iyo barakacyaasha dalka gudihiisa xukuumaddu waxay dhiirigelinaysaa baarista iyo soo saarka khayraadka dabiiciga ee dalka iyadoo laga baaraandegayo qaabka ugu habboon ee lagu gaari karo ujeeddadaas waafaqsanna shuruucda xukuumaddu waxay fulin doontaa barnaamijka new deal program iyadoo la sugayo tayada barnaamijka si dhab ahna loola xisaabtamayo hay-adaheenna u xil saaran iyo kuwa deeqbixiyaasha labadaba siyaasadda arrimaha dibadda ujeeddada xukuumaddeeda ee ku aadan arrimaha dibadda waxaa sal u ah soo celinta siyaadada iyo sharafta dalkeena si loo gaaro taa xukuumaddeedu waxay ka shaqayn doontaa siyaasad furfuran oo ku dhisan is-ixtiraam isxaqdhowrid iyo fargelin la-aan waxay wada shaqayn buuxda la yeelan doontaa dhammaan dunida gaar ahaan
dalalkaynu saaxiibka nahay iyo ururada aynu xubinta ka nahay. xukuumaddeedu waxay dhowri doontaa dhammaan heshiisyadii hore loo galay haddii ay waafaqsan yihiin dastuurka iyo shuruucda dalka. xukuumaddu waxay tayeyn doontaa adeegyada diblomaasiyadeed ee qaranka. arrimaha gudaha. howlqabadka xukuumaddeeda ee arrimaha gudaha waxaa bartilmaameed u ah dib u heshiisiin dhab ah, xiriir wada shaqayn ee u dhaxeeya gobollada iyo dowladda federaalka oo ku dhisan hannaanka federaalka iyo higsashada doorashooyin xor ah. xukuumaddu waxay ka shaqayn doontaa sii xoojinta iyo horumarinta haykalka dawliga iyo kan dastuuriga ah, waxayna si dhaqsi ah 100 maalmood ugu horeysa gudahooda ku dhaqaaqi doontaa soo jeedinta dhismaha guddiyada dastuurku idmay ee weli aan la dhisin. xukuumaddeedu waxay soo jeedin doontaa golahana soo horrigi doontaa dib u eegista dastuurka qabyada ah, waxayna diyaarin doontaa afti loo qaado dastuur dhammaystiran dhammaadka 2015. xukuumaddeedu waxay soo jeedin doontaa shuruucda lagu maamulayo qabashada doorashada xorta ah ee madaxa bannaan sanadka 2016. xukuumaddu waxay horseedi doontaa gaarsiinta dalka hannaanka federaalka iyadoo lagu dhaqmayo dastuurka iyo shuruucda degsan, waxayna u howlgeli doontaa helitaanka hannaan xiriir wada shaqayn ka dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka iyadoo loo marayo waddada wada tashiga. arrimaha bulshada. mudane guddoomiye xildhibaanada sharafta leh, haddii aad codkiina siisaan waxaan soo dhisi doonaa xukuumad kor u qaada adeega bulshada dalka. siyaasadda xukuumaddeeda waxay noqon doontaa in la gaarsiiyo shacbiga Soomaaliyeed adeegyada asaasiga ah sida caafimaadka, waxbarashada, isboortiga, shaqo abuurka iyo wixii la mid ah. si taas loo gaaro, xukuumaddu waxay ku tallaabsanaysaa gacan ku soo celinta iyo dib u dhiska iyo tayeynta xarumaha adeegyada bulshada sida isbitaalada, waxbarashada iyo isboortiga oo hadda gacanta dowladda ka maqan. dib u habeynta shuruucda saamaysa dhammaan laamaha adeegyada bulshada. dib u dhiska iyo dib u habeynta hay-adaha adeegyada bulshada ha noqdeen kuwa dowladda iyo kuwa gaar ahaaneedba. xoojinta iskaashiga adeegyada bulshada aynu la leenahay dunida iyo toosinta maamulkooda iyo hufnaantooda. kobcinta kaalinta qaybaha bulshada. mudane guddoomiye xildhibaanada sharafta leh, xukuumaddeedu waxay ka howlgeli doontaa haddii alla idmo xoojinta kaalinta ururada bulshada rayidka ah, haweenka, dhallinyarada iyo naafada ay ka qaadanayaan arrimaha siyaasadda mujtamaca iyo dib u dhiska dalka iyagoo u madax bannaan howlahooda. xukuumaddu waxay fiiro gaara u yeelanaysaa waxna ka qabanaysaa dhowrista xuquuqda kooxaha jilicsan vulnerable groups ee bulshadeenna sida haweenka, carruurta, da'weynta, naafada iyo wixii la mid ah. xukuumaddu waxay howlgelinaysaa guddiga madaxa bannaan ee xuquuqul insaanka. xukuumaddu waxay kor u qaadaysaa kaalinta oday dhaqameedyada, culamaa udiinka, indheergaradka. sidoo kale mudane guddoomiye xildhibaanada sharafta leh, xukuumaddeedu waxay dhiirigelin doontaa warbaahinta xorta oo ku dhisan dhaqan saxaafadeed suuban code of conduct. xukuumaddeedu waxay ballan qaadaysaa inay difaacdo xuquuqda shaqaalaha iyadoo dib u habeyn ku samayn doonta dhaqanna gelin doontaa shuruucda arrimahaas ku saabsan. xukuumaddu waxay xoojin doontaa daryeelka iyo dib u dejinta barakacayaasha gudaha, isla markaana waxay xil adag iska saari doontaa maaraynta habsami u soo noqoshada iyo dib u dejinta qaxootiga Soomaaliyeed ee ku silcsan dalka dibaddiisa. mudane guddoomiye xildhibaanada sharafta leh, dowladda aan soo dhisi doono haddaad siisaan codka kalsoonida waxay ku dadaali doontaa inay xaqiijiso in muwaadinku helo adeeg garsoor ku dhisan cadaalad, cid waliba u siman tahay, qofna qofka kale ka sarreyn qaanuunka hortiisa. si loo gaarataa waxay xukuumadda dib u habeyn
ku samayn doontaa